habeenimo waxaan horta aad iyo aad marka hore mahadda koobaad ilaahay baa leh alif mara ilaahay baanu mahad celinayaa bismi llahi raxmaan raxiim halkan tariixyeenka koowaad ee ciidanka boliiska sarreeye guuto cabdiraxmaan hogaamada qaybaha ku-xigeenada taliyaal saldhigyada saraakiisha kale ee howlgelimaha madaxwaaxeedyada laamaha bahda saxaafadda ee saacaddaa noo timid ee nala joogta waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bacda salaam waxaan halkan ka sheegayaa waxaa magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd 6dii abaarakowdii iyo barhkii habeennimo ka dhacay fal aada u fool xun meesha loo yaqaano kaalinta 8aad ayaa waxaa rasaas ka rigay nin la yidhaha gaashaanle yuusuf cismaan cali oo lagu naanayso daayeero oo ka tirsan ciidanka amgreshinka. ciidanka biliisku waa naftoodurayaal waxay heegan u yihiin ilaalinta nabadgelyada qaranka iyo ilaalinta bulshada. markii rasaastaa la maqlay waxaa si deg dega ugu soo baxay taliyihii saldhigga maxamuud haybe kabtan cabdi kayd halab oo ah taliyihii saldhigga maxamuud haybe horena loogu yaqaanay saldhigga qudhacdheer. goobtaa wuxuu kula kulmay eedaysanaha koobaad isla markiibana rasaas ayuu ku riday. sida ka warqabtaan rasaastaasi waxay dhaawacday sarkaalka taliyaha saldhigga iyo askari ka mida ciidankii la socday. ciidanka boliisku waxay ku jireen wardoon xog dheeraada iyo dabagal iyagoo ilaahayna tala saartay iyagoo ilaa habeenkii falkaasi dhacay aan ka bilow ilaa taliska sare ilama iyo askariga hadda dhibooga ka soo baxay aan howlgalkaa loo kala hadhin isla markaana aan heegan geliyey dhammaan ciidanka jamhuuriyadda somalilan si aan ciddii falkaa gashay aana u baxsan. intaasi markii ay dhacday markii aanu helay xogo dhaba oo ah ta had iyo goor ay waajibaadka kaba dambaysta adag ku qaataan ciidanka boliisku caawa 9kii habeennimo waxaanu bilownay howlgal adag oo daafaha magaalada iyo meelo kale oo ka baxsan baanu ka bilownay. taasi waxay sababtay in ciidanka boliisku ay gacanta ku soo dhigaan ciidankii imanka halkan aa ku arkayseen oon u mahad celina guud ahaan waxaan u mahad celinayaa ciidanka boliiska sida horena aniga u sheegay mahadda koowaad ilahay baa leh. hadduu yahay ka bilow min taliixyeenka koowaad ilamaa iyo askariga dablaa ah waan u mahad celinaya. waxaa kaloon si gaara ugu mahad celinaya dhammaan ciidankii hawshaa caawa fuliyey howlgalka fiidkii hore iyo karimakaba. hawshaasi waxay sababtay xogtii kaba damayska ahayd iyo raadkii ay ku joogeen in ciidanka boliisku abbaaro 2dii markay ahayd ay u baqooleen dhinaca galbeedka ee gobolka gabiley isla markaana ay ka soo qabteen eedaysanaha aan kor ku soo xusay iyo 2 wiil oo uu dhalay oo ka mid a dadkii falkaa ku gacan siinayay oo la kala yidhaahdo cabdirashiid yuusuf cismaan cali iyo cabdifataax yuusuf cismaan. dhammaan 3 eedaysanaba hadda waxay ku jiraan gacanta boliiska. waxaa kaloon halkan ka sheegayaa in xubno kale oo kiiskaa lu kulana obereshinadii fiidkii hore lagu qabtay. waxaa halkan aan uga sheegayaa cid kasta oo isku dayda inay fal amni darraa dalka ka riddo dabeedna ay si yaroo fudud u baxsato inaanay u suuro gelin. waayo wuxuu ciidanka boliiska waxaan ku tilmaami karaa naftoodurayaal saacaddaa waa aragtaan
bulshada reer somalilandna waxaan usoo jeedinayaa inaanay cidda xun ee nabadgelyada khatarta gelinaysa aanay wax usoo aanay qarin ay u sheegaan. arrintaa haddii laha idhaahdo cid kasta oo lug ku yeelata ama ay baadhistu gasho waxaa la horgeyn doona sharciga. waxaan intaa ku daraya dhammaan bulshada reer somaliland anigoo u mahad celinaya sida wanaagsan ay ciidanka booliiska ula shaqeeyaan in ay sidii si ka badan ula shaqeeyaan, waayo waxa dee sarkaalka iyo askarigaba lagu dhaawacay rasaas, eedaysanuhu isaga laftiisa dhaawac sahlan baa lugta kaga yaalla. waxa weeye arrintaasna waa markii dee arrintu dhacasay dhaawac sahlan ayaa lugta kaga yaalla labada lagood mid ahaan. waxaana weeye arrintaa waa la baadhayaa, si deg degaana sharciga loo horgeynayaa. waxaa kaloon u digayaa dadka waxyaalaha ugu daran ee fidnadu ka dhacda somaliland dhul baa ugu badan. dhul cid kasta oo isku dayda inay ciidanka biliiska kala hor timaado hub amaba waxyeelaysa biliiska iyo shacabkaba inay la kulmi doonaan tallaabo adag. waxaana ciidanka biliisku waajib ku qabaa in ciddii hub kala hor timaada ay siduu sharcigu tilmaamayo isu difaacaan, waajibkooda noo qabsadaan. waa mid dambe, waa goor dambe. waxaan iyagana si gaara ugu mahad celinaya qolada saxaafadda wada iyagu oo iska askar. waxaan ku tilmaami karaa waa ciidan, waa ciidan oo dee kamaruduna waa qoryi dee saacadda waa kuwa jooga. aad baan idinkan idinku mahad celinayaa. waxaanan u caddaynayaa bulshada in hawshaasi aanu gacanta ku dhignay oo ciidanka biliiska ilaahay kusoo guuleeyey oo aanu qabanay. ciddaa dadkaa hore laga qabtana baadhista wixii falkaa inay lug ku lahay ku caddaadaanna de waxa weeye waa edaysano sharcigaa la horgeynayaa. wixii aan falkaasi ku caddaanna waxa weeye xorriyaddooda loo celinaya haddii laha yidhaahdo. wabillahi tawfiiq. waana goor dambe. aad iyo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. bulshaduna waxaan leeyahay ciidanka biliisku waa naftood horayaal. waxa weeye qabashada hadday xagga warkatay, hadday xagga soomaalida waxay jiraan marka war la helaa tala la hela. operation xidhiidhsan oo 9kii ilaa hadda saacadda aynu joognay lasoo qabtay, 3dii iyo miridhaa la qabtay oon kala gol ahayn, oo dhammaan caasimadda iyo gobollada u dhowba uu ciidanka biliisku meelo gaara ka hawlgalay. iyo ilaahay oo guusha keenay oo nagu guuleeyey oo aanu tala saaranay. waayo qofku markuu xaq ku socdo waxa weeye ilaahay uu gargaaraya. waxaan leeyahay markaa dhammaantiin saraakiisha iyo bahda saxaafaddaba intaas wixii dambe faahfaahina dib baanu ka soo sheegi doonaa. laakiin warkaa horodhaca le ee farxadda ah ayaan ugu bushaaraynayaa madaxda qaranka jamhuuriyadda somaliland iyo bulshada reer somalilandba caawa inaanu eedaysanihii koowaad iyo ciddii gacanta ka siisayba aanu gacanta ku haynaa. ciddii aanu hadda ay guri ilaahay keenatay. ciidanka biliiskuna ay ku mahadsan yihin oo mahad celinayo 100% aad iyo aad baan u mahadsantihi.